السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ومدى الصوماليات ميل البواد نقدا ونيسان واند السلامي وولالكين وريا عبد الرحمن معاوية مانتا وحا ان لجوغا ان عبد الرحمن أحمد وموقال كيسا هورانتي بشان اينو يدين سو قد بني ان عبد الرحمن وحا وها ويل كان دليرada darkiisaan oo ay horaantii bishan xaaskiisa ay ku gubtay gudaha magaalada Wajeer sida aan horay warbixinta qaybtii hore aan idinkugu soo gudbinay isaga oo markaasi dhaawac ahaa oo ku sugnaa isbitaalka magaalada Wajeer oo lagu dabiibayay maanta waxa inoo suura gashay in aan hoygiisa ku booqano oo aan xaaladiisa mar labaad dib idinkugu soo gudbino inaga oo sidoo kale la yeelanayno waraysi si markaasi uu faahfaahin inooga bixiyo xaaladiisa guud iyo halka xilligani ay wax u marayaan Cabdiraxmaan marka hore ku soo dhawow waraysiga aan rabnay inaan kula yeelano oo aan jecelnahay in aan sidii markii hore aan xaaladaada u soo booqanay oo aan maanta ku soo booqanay marka hore waraysiga iyo su'aalaha aynu doonayno inaan ku weydiino diyaar ma tahay inaan isooreysano walaal diyaar waan soo dhawaad ma santahay sida soo booqateen waad ku maasantahay soo aad u maasantahay Cabdiraxmaan waa kaaga mahad celinayaa bal marka hore xaaladaada guud sharxaad hadii aad naga siiso tan iyo waqtigii dhaawaca uu ku soo gaaray ما شاء الله وما سنتها سيدتي ورئيستي الحالة هذا عن كجرو وان في عنا الحمد لله برواقة البشبش لب بدن وان صوم مري إسبتال وان صوم قلي لب بدن وان صوم مري دد بدن الشعب هنا ويلا والرمين أنا قلت أنت إذا وان ركي شعب كنا وركوه وان مغلي إسبتال وان صوم قلي حنون وان صار كي بس لكن وقت هذا عن كجرو إن تاس هذا عن شيء وهاي يقطع حق الله دنبي يقطع ما يعافمات هذا عن كجرو يعني ليه وما هدعلنا يا شاتك بدن هرنا هاي عافمات كي أنا مهم أي هاي عديد iyo ilmiyigina isku toosihiin qofkii dibkan eegisteen aan caafimaadkiisa hada asfiican yahay oo iska caafi ilaahay aan ku dhaafay ilaahay madama aan ku dhaafin hadan ilaahay aan u bariyaa in dibkaas faraahum mar damban ay ku dhaqaqin oo dib ugu laabanin oo inaan mar dambe u noqonin cidadana sasan ay u dhaqata ayaan ilaahay u bariyaa waa tahay Cabdiraxmaan marka uu falkaasi kugu dhacayay amaba ay xaaskaaga ku gubaysay xageed ku sugneed ama xageed joogtay waxaan ku sugnay gurigeyga ku sugnay balse laakiin waqtiga biyaha kulalkooda ugu dhacay waxaan joogay guriga hooyaday ayaan jifay habeen xalay amal ayaan wax yar khilaaf naga dhaxdhacay kadib khilaafkii markuu naga dhaxdhacay shaydaan ayaan soo dhaxgalay ka bacdi khilaafku waa sii weynaaday shaydaanka xageeda u batay bilaabay soo turtay dhagax ay soo turtay ka bacdi waan ka cararay habeen mugdi la joogay waayo ma sheegi kari gacanteeda ma dhagaxa ku jiro ma bidiya ku jirto ma sheegi kari waayo mugdi la jooga waxay soo tuureys anigoo ka cabsanay ayaan iska cararay ka bacdi habeen marka la gaaray oo 3 saac 4 saac la gaaray guriga hooyaday ayaan galay waagii markuu noo bariyay 3 saac maanan la joogo ayaa waxaan la kulmay gurigii aan xalay hooyaday la saxday hooyaday oo baxday magaalada qodaal iska rasatay iyo ilbaabkii oo xalay saxday oo furan iyo qof oo ka soo galay oo magaalada ka imaaday ay soo doomartay maamada ay soo doomartay cid ay ugu maaday cid markay ugu maaday people hobris ka dhahday waa tahay marka biyaha Cabdiraxmaan xaaskaaga kugu shuwaysay miyaad fadhiday miyaad jiiftay qaab nooceed u jiiftay amaba dhinaceed u jiiftay xagee kaaga dhaceen biyaha kuleelka jirkaaga gubay waan jiifay sidaan xalay u saxday ayaan hay goor 3 saac habeenimo 3 saac maalinimo subaxnimo aniga afganba u jiifo 3 saac habeenimo kala joogana qabowad ugu soo dhacay go'na ma haysan waayo guriga hooyaday ayaan jiifay gooy waxaad ma basiiraysan xalay aan digaal galay oo buuq san ku saxday ilistaan ku saxday go'lanan hay qabow way soo dhacay afganba u saxday ilaahay maslaxa iga dhigay afganba way u saxday ayaa 3 saac maalinimo kala joogo ayaa igu soo gashay ilbaabkii kor ka furtay kadib biyo ay ugu shabtay anigana afganbo ayaan u jiifay fanaanad garan ayaan xirnay sanduurada ay xirnayd markii biyo ugu shabtay ka bacdi waan soo booday sanduurada ay celisay sanduurada markay celisay fanaanad garan ay soo jiidi waan sii murxay meeshii ilaahan ka sii carray farmashiin meel aan dhaxdo ku yeelan aaday farmashiin markaan aaday ka bacdi farmashiin xabateetan aan ka qaatay isbitaalka si aaday isbitaalka ayaan saxday sidaad ay anigoo dhaawac ay ila kulmeen dadka hadda waqti xadarka ila joogo ayagoo cadeyn arkay korkayga oo muraxsan ee jirkayga oo dhaawac leh waa tahay Cabdiraxmaan waxaad inoo sheegtay adiga oo jiifto in xaaskaaga ay biyaha kugu shubtay khilaafna uu idin horeeyay marka biyaha ay kugu shubtay maxaad dareentay maadaama aad qof jiifo oo xaaskiisa oo uusan ka filanaynin in ay biyo kulul ku shubto biyo ku shubtay deeta maxaad dareentay markaas wallahi waxaan dareemay xanuun aad weyn ayaan dareemay marka hore oo biyaha ay u dhaceen shabta hore waxaan dareemay سريد
burinaysa oo lagu daray hilib lagu daray camal oo camal oo qayle ayaan dareemay oo jirkeyga ka kacay iyo xanuunkii oo ila sii kordhisamay waan soo booday banaankan u soo baxay xanuunkii ilaa muddo 3 saacadood camal waayahay oo korkeyga uu karayay meesha iyada goobtaadna waxaa ku sugnay yar aan ila dhashay isku aabaan isku hooyin aan ayaa meesha iyada ku sugnay oo guriga jiifay uu soo baxay niyo kale isbitaalka ayaan dhahay asagana uu iga madax adkaystay wuxuu yidhahay adiga doortay dabada dhuqso بعد أديك يا قف كان أتشوي كان تشوي أنا مرة بوست قوتي أو واجعل ده إذا لو جعلهم بيديسي مركان أديك يرميني ملا إسكال العديم مثل هذا أنا جوا صعر نفع ولا صعر استرجع إسكال لكن حنون وين أيان كرسو مر دبكة بياسي حنون كذا سيد يقبتي واتهاي مركا أد جبتي كذب محات سميسي مدام جركاجي وداوع مي حاسكاجنا دبكة كوجيستي فعل نوعيه يا دكتور كويسة والله يورت مركي بيا وشبيسن أردي يعني كده بتجي حتى يعني قبل الله يورت وحن مرينا مركي إذا حساب أنت فلست اسكم حساب تمن أو اسمه لهن وهو هاسك هذا علمي هو هيسا وحنا وأدون شيطان واجرا أدون وحنا على كل مين الملهن مركي إذا كم حساب تمن وقت حال الكاسواي وحناقي أردك مركي بيا يودعين وقت حال الكاس دي أن قبل الله وحي كسو جار لا مشي كرا بس لكن إليه محدث أيضاً وابحثتي أنا كان واحد لي حجاب يجي سندرود إقامتي كبعد سيدا وكل بدباني إن حديث سندرود أسأت كبح اللهيد أو حكوا سورة قليل اللهيد إن أضرب الصعود أو مركز حنون كوجاري أيضاً أدوح جارسيسو ويا سندرود وان كبحي بس لكن إذا الباب كي جيران كيكسي بعد أسيقشي بعد أنا مسؤول أردن وان قاوناي حنون كي هاي إقاونان تيدا سفيري وان سكجو وان جوي عفوا يعني قصو نادي مسكين حالات قايلين قويني واتهاي اسبitaalka yaa ku soo qaaday kaliga ba tagtay mise markiiba qof dhaawacan baan noqotay oo hora lagu soo qaaday sida aniga runta ka waramay isbitaalka sidaan ku sheegay yarkii ila dhashay soo xaafadiga isbitaalka markaan dhaay oo iga diiday aniga muddo hal saac ayaan cid ku dhex sakaraaday ay gabar jiiraanka cid igu maadiyo sakor igu shabtay ka bacdi waxaan isku dayay meesha inay cidna isoo soconin halkii qof oo hadii dib aan naga dhaxdhaca dhibkan yar naga dhaxdhacay mooyay dib walba naga dhaxdhaca garab isin jiray inay isla aydan ay gubtay inay tahay halka qof oo garabkayga taagnaan jiray ayaan dareemay marka waxaan is ogaaday inaan hal baal aan nahay awal laba baal ayaan nahay ida baalka labaadiyeed hal baal inaan nahay aan is dareemay baalkayga anigoo qaba ayaan iska orday oo carray oo kaliya isbitaalka tagay luqtayda ku tagay anigoo shaatilaan markaad isbitaalka tagtay oo ay dhaqaatiirta ay ku soo gurmadeen misnaba qolka bukaanjiifka lagu seexiyay xaaskaaga miyay ku imaatay muddo laba maalin carar ay ku jirtay banaanka ay joogtay meel ay ku sugunta lama sheegi karin balse aniga telefoon aniga ay raadin jiray oo aniga bukaan oo sirtijiif ayaan la hadli jiray oo ayaan dhihi jiray halkan booliis ayaa ku raasanaysa aniga ayaa inay soo kaamar rabaan anigana waan ku caafi dambigaadan ilaahay ilaahay dambigaada ha dhaafa ilaahay ana kugu qabsan kara adiga iyo dambigaada qabtaada ilaahay waan ku caafi ilmiyga hooyada tahay balse waxaad ogaataa inaan haddana sharaf aan ku yeeli raba ayaan rabaa oo dadka shacabka aan tusin raba inaan adiga garab taagan tahay inaan tusiyo waxaad ogaataa haddii aan hadalka ka dhax galo isbitaalka adigoo ku jirto ayay rabtay inay ku soo booqato balse way cabsanaysay cabsi awgeed ayay u imaan weyday oo ay ka cabsanaysay waxay ka cabsanaysay muddo koowaad waxay ka cabsanaysay xirma ay ka cabsanaysay in la xiro وكو مد اللباد وحي كعب سنيسي شعبك أو وضع فيرنايا وكو وضع عمبارويس وجيجي كي حيحيس ويسبتال قولها أوينيسا أي فيرنيسي مد سدحات وحي كعب سنيسي إنان أنيقان أيا وهوري أنك عنتي دو هديله وحي كو حساب تنتي مركا إيشيكتي هدوب أساقو كودافي أو كعافي أو كحيرين إنو أساقا عنتي سكاقا أرسل ربا أي اسكال داسي بلسي أنيق وحن كداسي إنان عنتي دين وأرسنينين aan xireynin shacabka xir rabana aan ka difaacaya xaqiiqana ay u soo cararto isbitaalkana ay ugu maad ayaan ku dhiirigeliyay isbitaalkana ay ugu maaday meeqa bari kadib ay isbitaalka kugu soo booqatay marka ay ku soo booqatay oo aad aragtay in xaaskaagii ku gubtay oo haddana isbitaalka kugu soo booqatay maxaad dareentay adiga wallahi aniga kulay waxba ma dareemin waayo wixii aan dareemay aad waxaad fasha iyo ubadkan dhalay ayaan ku ilooyaa ayaan nidayd soo gashay fanaanka cawaale heestu qaaday ayaan nidayd soo gashay ka bacda beerkayga waa iska darsaday balse laakiin qofkii waqti xadarkaas kulay oo jirkiisa xibinta kale ka sii dalqaysay oo ilintan ay ka qumaysay ayada ayay ahayd oo dambiga galay qofka hor jifana qofkeeda kalgaceelkeeda lamaanaheeda ilmaheeda abood ay gubtay
ayaa hor jifa ka bacd xibinteeda ayaa danqatay ilantana way ka dadanaysay shacabkana way daawanayaan mana cuna karto oo waxa hilib ka rawaaya oo afka ka mucun karto waa qof nool banaadan sida tadana waa yeeshay wayna iska daawanaysay balse laakiin aniga waxaan ku ilooway ilmihi aan dhalay waa tahay marka ay ku soo booqatay waxa jira ehel adiga isbitaalka kugu kula joogay ama ku soo booqanayay sidoo kale dadka isbitaalka soo aadayay oo danahooda gaarka u soo aadayay misna marka ay maqlaan qof baa la gubay ku soo leexanayeen ayaa jiray bal ka waran bulshada hadal noocay ah ayaa ay dhahayeen amaba dhagahaaga ku dhacayay misnaba ehelkii iyo qaraabadii kula joogtay misnaba xigtadaada ficil noocay ah ayaad markaasi ka dareemaysay maadaama gabadhii xaaskaaga heed ay ku gubtay ay kugu soo booqatay isbitaalka iyada oo markaasi haddana adigii aad u fidisay cafis oo aad tiri imaaw aniga raalli ka ahayd ficilka aan ka dareemay ayaa waxaa tahay hadda ficil weyn oo ka dareemay markiida ma jirin laakiin dhag ma dac qoranto oo eray walba waa lagu soo tuuray waana dhageysanay waana ka jawaabay ficilka hadalka erayga lagu soo tuuray oo wareys waxay ahayd niyo adiga gabadhan saan ku yeeshay Google kuma noqonaysa iska fur waa koo waxaan dhahay la furo ma ilma lagu dhaafaya والله هذانا حضرك كلو لو صوتوري وحياة ناقت سام كويش يقول كوما نقونيس حر وحنا لما حر واسك جوجايس المال اسك حجوكت بنادم دنب وقلا إليه يقول فينا فرق هذا وصدق هذانا أنا قال لي لما سؤالين هذا كنا واجنا قعنت هذا وارث بس لكن إذا يكعب سنس إن أنا قعنت هذا وارث قعن وارث أنا ما يواسك عفي واتاي هذا ندب أولو ير الله يبنو واحد شكتي sida aad afkaaguba ka dhabaajisay in khilaaf uu dhaxdiina soo galay oo aad mar mindi kugu soo qaadatay dhowr jeer ay garaafo ku gaarsiisay khilaafkiina guud muxuu ka bilaabmay xaguu ka soo askumay khilaafkiina ama uu ka soo bilaabmay horantii wallahi horto khilaafka meel walba horto waa iska yeelaa bilcaan oo idil ayaa saas u badan ama waa lagu wataa ama waa lagu furaa ama waa la iskaga dheereeyaa laakiin midka ugu dulqaadka yar waa ku furaya oo banaanka ka maraya hadii ay noocyada noocaas la soo baxda laakiin bilcaan oo idil ayaa sideedaba xujo iska ah mid ba ilaahay qalinka toosan isku wanaajin mooyee khilaafaadka noocaasina waxa way shaygeeda dhamaala ayaa dib iskaga socdaba anigana wixii sembar aan ka raadinay oo ka dandoonay waxay ahayd in cidda reerka aniga aan aabba ka ahay ayadana hooyo ilma ay ka tahay oo xukunkeyga ay qaadata amarkeygana ay qaadata anigana cideedu waajibka aniga ay saaran oo aabanimo aan ka soo baxa iyadana waajibka hooyanimo saaran ay ka soo baxdo waayo oo waxa isfahan weeyga meesha keenay oo khilaafaadka ugu weyn keenay hadii shayga ugu yar oo bilcaantaada aad adeegsan rabto dirabta abay koobkaas ay keen adeerabta way ku jeceshahay laakiin dhaqanka cidda ayaa ka maqan waxaan ka dareemay inay jecesha dhaqanka cidda aad ka maqan yahay dibci oo dhalatana ay tahay waxaan ka dareemay koobkan ay keen markaan dhaal laba jeer camalna iska daba laabato weydiidaysa sirtan isoo Google markaan dhaal laba jeer camalna iska daba laabato weydiidaysa koobkan biyaha marka ay keen dhaal weydiidaysa waayo aniga ayaa u fiilin jiray inaan dhibin oo wax walba ay jeceshaan u suubiye hatta reerka cidda shaqada ay ka qabanayso inaan la qabtay aan isku day jiray sirta aniga Google jiray cuntada markaan habeen cid ma aniga soo baxsan jiray koobka bakeeriga aniga keensan jiray hadii ay caafimaad qabtan ayada ay dhiis ka rabana ku keenay waayo aniga soo bari mar dambana waxaan isku day in shayga raaxada aan soo bara in aan soo bari in haddana isku day aan keen ba haddana waayo way awood weyn aan ku qasbay waa tahay markii horeeto aad isa soo guursateen oo aad isdabeecad fahanteen dabeecadeedu waxa aad ku baratay ama ba aad ku ogolaatay in hadii aad la hadasho ay ka dhaga adeegto ama ba hadal ay kugu soo celido in aad u dul qaadato oo aad markaas wixii aad u baahneed adiga aad qabsato in xagee wax iska bedeleen marka bilaadan hadalkiisa miya ku soo gaaray adiga ayaad dhibsatay xaaskaaga oo joogto in aad adiga adeegato ama wax qabsato waxay wax iska bedeleen anigoo runta ka waramay halkaan sheeka aan ka qaranaynin runta banaanka soo dhigay wax iska bedeleen waxa waaye qofkii oo saas isku raacnay dhan walba iskaga soo doonay dhan walba cid xiriirkeedana aan la qabanayo eedana hal kaalin oo wanaagsan aan ku haysanin balse hadii aan been la sheegaynin aniga beel masruuf oo joogto ah ma haynin hal shaqo aan beel aan ku ogeeyna ma jirin iska garab xamaalata iska dul xamaalata ayaan hay muruq xamaalata ayaan iska hay balse yoomi ayda ayaa soo baxaysay iyadoo ay garab galaysa suuqa ay soo aadaysay iyadoo beel iska sheegaynin jaad ay suuq u gadaysay shaay ay gadaysay ilmaha maalin joogooda ayay ila qabanaysay saasoo tay aniga markii waxaan sii fiiri
sidii ay cidooda ay ugu soo go'day sidaan aniga cidayna ugu go'ay cidoodana ay isu arki karin cidayna ay isu arki karin labadayna ayaa noqonay laba isu go'day ayadoona isu go'nay anna cidaan u sheegana aan jirin idin cid ay u sheegana ay jirin ayaa waxay hadana meesha dheeraad noqotay waxa iga qaadi kartay iga qaad oo waxaaba jiraybo khilaaf xagga qoysaska ah oo xitaa in labadiina aad labada qoys ay isaga soo go'daan oo midba midka kale uu u sabro waa tahay marka ay ka diiday in ay wax ku qabato adigana aad ku qasbanaatay in aad dib u celiso oo aad bedesho dibciga amaba dabeecadda ay kugu dhaqaysay maxaad kala kulantay marka markii maxaad adiga dabeecaddeedii aad ku wadatay amaba oo aad raaliga uga ahayd oo haddii aad wax u dirto ay ka diidaysay maadaama aad go'aansatay inaad bedesho dabeecaddaasi marka maxaad kala kulantay oo ficil ah waan bedel weeyay dabeecaddaas markaan bedel weeyay habeenna kamid shaydaanka waa iska jira oo soo dhaxgalay aniga banaanka iska fadhi waan boodi dabeecaddii hore soo bari ayaan isku dayay inaan iskaga noqdo sirta ayaan aaday waan soo gogoladay jikoniga ayaan galay cashadan soo ritay galaaska biyaha iyo garaafaha biyaan soo qatay gacmaha ayaan dhaqday waan casheeyay kabacdi ayada ayaan ku dhahay ambiga adiga walaalay macaanay adiga adduun iskaga soo go'an adduun la joognaa waxa waa adduun aqrana way noo dhimantahay xisaabaadka leeyna waan hor yeelaan nin inag markay isla joogaan waa inay is wanaajiyaan tababarka ilmahana saas ay ku wanaagsanaato waaye haddii adiga sida aan rabo aan ka helayn adigana sida rabta adiga helayn meeshan wareer ayaa ka yeelaysa sababta iyadoo shaydaanna meesha aad soo saddexeen doono hadal ay ugu soo celisay saan rabo male ada wareer wada ma ogi mar adiga ay bilowday ka bacdi waan istaagay sanduuqda ay ku jirtay ayaan ugu galay waxaan ku dhahay saan dhaqan maahan saan ma bedelaysaa ama ha aniga waqti siin raba inaan carabin oo xoog aan ahayn oo carshayn ah jug weyn aan ahayn miyaad u gacan qaaday markaas oo maadaama aad rabto in aad dabeecadii hore bedesho ficilka markaasi aad sameysay ma cabiri kartaa waan cabiri karaa uma gacan qaadka aan qaadayna ma ahayn mid amaanta aniga niyadeed ka soo go'ay hebel laay way ka diiday hadal ay waxaad yeeshaa u dhamay ama dil ama qarac ama lubka jibi igama ahayn laakiin waxa iga ahayd xaq diini ah oo qofka dumarka haddii aad kari weysad inaad guusha u fogaatid haddii aad kari weysad haddana aad cimaamadaada ku qaraacdid haddii aad kari weysad haddana aad qanjuruufatid halkaas ayaan rabay inaan u adeegsado sanduuqdaan ugu galay waan qanjuruuftay markaan qanjuruufto waxay haddana aan dareemay inay isku diyahaysa tab noocay aan sameeyo inay sameynayso haddana oo ay gacantii adiga aad damacday inaad kusoo jiido iyadana ay kugu laba celiso ayaan dareemay oo ragnimo kale haddana ay garab dhigaysa iyadoo bilcaanaya bedelka iga dambeyn leed haddana gacan dhaaf haddana ama gacan qaad haddana ay ugu sii darsatay ayaan dareemay marka ay ku aad aragtay inay ku gacan qaadayso tilaabo noocay ayaad qaaday maadaama aad ka dhawaajisay in maalinkii oo idil ay suuq joogto nolol maalmeedka caruurta ay soo dhicinayso adigoo shaqo hesho misaba aadan helin oo aad adigaba gacanta dadka farsamada ku shaqeysta aad ahayd marka qofkii maanta idil kuu soo rafaadayay amaba caruurtii u soo rafaadayay markii aad go'aansatay haddana aad bal dibcigii aad ku qabtay aad ka reebtid ay haddana ku gacan qaadayso maxaad samaysay adiga ficil noocay ayaa ku dhaqaaqday ma isbedelay dareenkaaga oo ma ku gashay haweeneydaada amaba xaaskaaga waxa ay kugu soo celinaysaa hadalka oo u gacan qaad waa u gacan qaaday gacan qaadkaas oo ugu dambeeyay markii ay labaad igu soo celinaysa marsaxada igu soo celinaysa ayaan hal darbaxada ku dhaftay ka bacdeen darbaxada kale ma raacin halka darbaxada ku dhaftay waa shanqartay hooyadii ayaa jiirana lahayd maamada ayaa shanqarta maqashay ayada waa caawaday markii caawaday maamada ayaa soo baxday iyadoo lado istaagtay iyo anigoo istaagay sanduuqska la istaagno is haysano gacmaha is haysanay maamada ayaa sida nagu kala qabatay ka bacdi aniga habeenimada waan ororday waan fiigay markaan iyada nabarkeeda aan ka carray iyada waxaan markii hore waxay aad kaali bar qofkan ku day hadii ay wax ku keenayso bar isku bedeli kartaa igeed hadii isku bedeli weysnaada inay tiita aan ogaaday nabarkeeda baan ka sii carray maslaxada aan ka xigsaday hadana googasha maamada ama sagal waa saxday sidaan ay dhibkan isku dhacay waa tahay marka ay dib kugu soo booqatay isbitaalka ay aragtay dhaawacaaga bulshadina ay dhaga hadalka ay idinku wado oo ay leeyihiin shacabka isbitaalka kugula sugnaa naagtii gubtay ayaa haddana hoosta uga jirta oo soo booqatay hadalladaasi adi maxay kaa bedeleen wallahi horta dad ayaga uma go'ay ogi family horta laguma go'i kara aniga cideydii ilmeydii oo bilcaanteyd hadii aan isku kaban on united aan isku nahay waan ku faraxsanahay balse laakiin family ayaa qaarkiis ku kala go'ay family haddana dhamaan marka hore wada kulli dhamaan wada hay
haddana barkoodna haddana ilaahay ii soo celi barkoodna weli sida ay ku maqan yihiin marka gabadha ay ku dhaawacday qoyska maxaa ay kuula imaadeen oo markaasi ra'yi noocay ah ayay ku siiyeen mise ficil noocay ah ayay qaadeen ka qoyska kowda hore waa familiga iyo gabdhaha iyo wiilasha iyo macal ragga ayay hayaan waxay dhaheen gabadhan dhibkan ku keensatay dhib badan aad la soo marteen xaajadeena isku badatay geedba geedkiisa kale loo fadhiistay waa jeclahay oo kaliya meel ma buuxiso dhaqan ayaa wax tara niyo qoftan iska fududay gabar kale oo cid ayaan ku dhisaynaa lacag anaga ku raadinayna hadii aad waxaad ku dhisato as haysan iyo hadaas haysataba ku kordhayna anaga ku dhisayna gabadha iska fududay ma ahaan weysi xir ma ahaan weysi aday ku taalaasa sameynaysa ana aqtaada ma soo istaagmeen ilaa iyo waalidkayga sidaad ayaa mowqifkoodaas ahay markii aan soo tagay oo isbitaalka soo carray oo cid imaaday qofta sida ay ugu soo booqato oo cid ku umaado oo isku aragna anigoo suurtagelinaya ayaan isbitaalka population ka soo dhaxbahay isbitaalkan ka soo tagay cid aan imaaday sidii ayaan adigoo dhaawacan ayaad isbitaalkii ka soo guurtay ama ka soo tagtay si ay bal gurigii ay kugu soo booqato anigoo dhaawacan oo dhaawaceen iga dhamaanin ayaan ka soo tagay si ay igu soo booqatay guriga ku umaad way imaaday gurigu marka kala tagi iyo colaada familiga midda maamada iyo midda family kala ahayd maamada waan soo ceshtay waan raali geli gabadheedii waan la raali geli waa ii soo noqotay laakiin dadka kale oo qaraabada kale oo gabdhihii cid ahay ayaa weli sidii ku fog oo maamada markay magaalada ku arkaana dhahaya ninkii aaw soo noqday waa fiican yahay cidaas jooga naafti aaw ma la joogtaa ha waa la joogtaa la ilaaha illa waa israacsan doontaa oo macnaha ay ula jeedaan haddana sidii un beeyeli doontaa tukala waa israacsan doontaa taas un baas gacanta ku dhimanaya ninka naagta ka furtay adiga dhale ku talna marka maamada eedana kulay hadalahaas ayaa soo danqinaya ka bacdi markay cid maadana isku dayaysan inay dhada aniga Abdurrahman waxaad yeelaysaa qofkaan ma xir weysaa ma fur weysaa waa ku bariya fadlan wajigeeda iga qari anigoo sal ibaar meel aan degay aan haysanin ay erigaas ama subax kale soo baxday oo idhaahday kabta Allah ka tasartay cidaada la aad naagtan gabadhan idaafi aniga wajigeeda ma arki kara waa tahay intaas oo dhan markii laga soo gudbo marxalad oo waxa soo martay qof la gubay aad soo noqotay dhaawac badan baa soo martay isbitaal baa gashay dhaawacaasna waxa ku geysatay caruurtaada hooyadood oo xaaskaaga ah marka hadda sida aad sheegtay waad wada joogtiin wada joognaa ma farxad baad ku wada joogtiin ka waran bal jaceylkii hore aad u qabtay iyo ka hadda bal haddaa faahfaahin ka siiso ummadda kula socoto amaba ku daawanayso oo horena markii dhaawaca aad ahayd aan u bandhignay bal haddaad faahfaahin ka siiso jaceylka xilligan aad u qabta xaaskaaga maasha allah jaceylka xilligan xaaskayga aan u qaba horta xilli hore wixna soo maray xilli hadda waxaan ku jirno alxamdulillah hada xibinka ma jabni waan caafimaad qabaa shaatigayga suraalkaygana waa xiranahay ilmahaygana maxooga iga xiran jaceylkaygana gacanta ayaan ku haystaa gurigaygana waa wada saxnaa gurigana waa wada joognaa booshadana waa la cunaa biyana waa wada cabnaa baahiya dharag iyo gaajo waxaan wada joognaa waa la joognaa ilkahana waa iskala qusulnaa uurkana waa iskala dhool caadeynaa waana isku faraxsanaa alxamdulillah maasha allah cidaydana sida hadda ay tahay allah ay ugu haaya gabadhana maadaama dambi ay gashay qaladka aad ka dhacayna waxay leedahay aniga qaladku waa iga dhacay wixii iga keenay shaydaan ayay hayeen shaydaanka iga keenay aniga aan ku talagalay ma aheen tu aad shaydaan iga keenay ay ahayd waxaan ka codsanayaa dambi dhaaf inaad i caafisid oo hoosh inaad i caafisid to damba laakiin jaceylkii adiga aad ii qabtay inaan kaala wareega oon aniga gacanta ku qabto oo kugu maamulo inta adiga ay soo dulqaadanaysay inaan kugu soo dulqaato oo dhaxda ku xirta ayaan xilligan diyaar aan u ahay oon weliba aan kala meel dhiga guntiina wila ma xiratay gambada ma tuurtay guudkana ma jaratay intaas gacanta midi qabatay geesiga jeleed gacali aboobay ma tiri inaan ku dhahan ballanka aan qaadatay marka anigana waa ku farxay hadalkaas ay soo joosay oo waa ayba ku heestay oo ay ku gabayday waa ay heestay oo ay gabayday hadalkaas ayaa marka aniga beerkiga dilahay labadeed cunug saddex cunug ay joogto waa laba gabdho iyo hal gabadhina gacanta midigta aan ku qabsaday wiilkana gacanta bidixda ayaan ku qabsaday midda dhinaca dhabarka ayaan saartay ayadana xabadka ayaan saartay saan noloshaan loo haatan
marka Soomaali weyn meel walba joogto waxaan Ilaahay ka baryayaa sida tan hadda qoyskayga ciidii family-da asiyay dabcigaas hadda isoo noolanahay waayo waxaan awal xog ku raadinay ama aan dulqaad ku raadinay ay hadda sadeganoosh Ilaahay aad igu soo bilaaynaya marka dhaqanka hadda Ilaahay igu soo bilaaynaya sida toos hadda aad yahay aad Ilaahay igu haay inay faataxada igu soo maraan oo igu soo duceeyaan ayaan ka codsan lahay dhaawac waxaan soo maraba haddana waan caafimaad qabaa laakiin ma yahay ruuxa maanta intii جوان قبت قاعد قبته دوش قاعد كرا أو أدور قاعد كرا مثلا كيسمه وايو أول جوان كدوش أيام قاعد جري بقول كش إنه قصة بعصدنا أيضا ممكن يجري لكن أنت بمصير فينا أنت كعارف ما تقوي ونسوق هذا جوان كسر دون إن شاء الله بليلة هذه بعض ما سنت هاي وان كاجم هذا علينا إن وقت جاء قالجا أو نسيسي inagana muhiimada aan u imaanay aan ku soo booqanay waxay ahayd marka ugu horeyso in aan ogaano xaaladaada caafimaad ee guud iyo marka labaad ficilkii labaad ee aad qaaday markii dhaawaca ku soo gaaray in aan u bandhigno umada aad ka inoogu xiran ee ina daawato iyo sidoo kale go'aanka aad ku dhaqaaqday maadaama nin xaaskiisi gubtay aad noqotay haddana maadaama adiga iyo xaaskaaga aad wada joogtaan aad baan ugu faraxsanahay waxaan ku leenahay nolol wanaagsan oo waan waa hagaag daawadayaal waad ku mahadsantihiin daawadashadiina kani waa Cabdiraxmaan oo ahaa wiilkii dhalinyarada sidoo kalena aabaha caruurta haystay ahaa oo ay horaantii bishan xaaskiisa ku gubtay magaalada Wajeer oo aan muuqaal horeydii kaga soo gudbinay haddana sida aad arkaysiin xaaladiisa caafimaad ay soo hagaagtay oo waa kana waqtiba in la siiyay oo aan ku wareysano waxa aad sugtaanba wareysiga xigo aan la soo yeelan doono hadii uu eeba qadiro xaaskiisi dhaawaca u geysatay si markaasi iyaduna aan wareysi gaar ah oo kan ka xiisa badan aan idinkaga soo gudbin doono inta aan ku kulmi doono wareysi xiga waxaan idin leenahay sidaas iyo amaan Allah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.